بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولا ريال وحين إن شاء الله تعالى وحي رب سبحانه وتعالى إنه قدر كأوران دونا مسألة عنوان كذا مقشان حكم إحراق جثة الكافر. قفك قال كأه بختيسا سيدا اللي جاي يليو يا شرعي أهان حكم كذا محن قنيا. مسألة ذني حقيقة أهان أن أمتها الله مركي نجا ودن كان هي واقعنا الله إيجو تدكينا عادي أمتها الله مهمنا معها إن لقلا هذلا حيالي قال إنه joogta oo ay markaa dadku gubayaan ama ka jooga ama gubal la yiraahdaa ma jirto. dhacdo uun bay ahayd, cid gaara ka dhacday, waqti gaarana dhacday. waxay qorxoonayd haddii wax jiraan oo wax ka soo noqdaan in cidda lagala hadlo. hase ahaatee waxaad moodaa masaladii waa la tanaaqulay ama waxa weeye waa la isu dhiidhiibay. aad iyo aad baa cid waliba uga hadashay, cid aqoon u leh iyo cid aan aqoon u lahayniba way hadashay, cid caadifad iskaga hadlaysa iyo cid cilmi ku hadlaysa intuba way hadashay. bal dadka qaarkood oo aan aqoon badan u lahayn waxaad arkaysaaba sida ay hadalka u dhigayaan iyo kulaylka iyo xamaasadda ku jirta aad is oranayso malaha de asal kamida asaladii diintee waaweynaa malaha quraankiiba wax la yeelay ama diintiiba dadku ka baxayaan markaas uu qofkani deetana caraysan yahay baad soranaysa sida dadka qaarkood u hadlaya. waxaana keenaysa qofkani waxan manuu maqli jirin, manuu arki jirin, diintiina aqoon badan uma leh, deetana wuu qaylinaya. waxa la gudboon markaa qofkan aqoonta lahayn inuu dadka ahlul cilmiga waxay yiraahdaan u dhageysto, inuu isagoo cilmi lahayn nin aqoon la iska dhiga ma aha. haddii maanta masaladu aanay ummadda sidaa u dhex qaadi lahayn oo aan ummadda aad loogala hadli lahayn, iskuma kalifeen inaan halkani dadka caamka ah kala hadlo. waana ogeydeen oo usbuuciyo ziyaada ka soo wareegtay arrinta dhicitaankeeda, laakiin waxaynu da isaga aamusnay maadaama ay cid gaara khusayso. ciddii gaarka ahaydna ay dad ahlul cilmiga wax weydiiyeen, ahlul cilmigiina ay wax u sheegeen, sidiina ay markaa ku hawl galeen. ciddii markaa tabaysa inay cidda gaarka ah kala hadashaan, laakiin dadkan dee caamka ah gaalna ma gubayaan, gaalna ma daynayaan oo gaal ayagu gacanta ku hayaanba ma jirto. wax markaa iyaga laga nahiinaya ma jirto. dadka qaarkood waxa laga yaabaa waxay u hadlayaan waa inaynu ka dhiidhino, waa inaynu sida masaajidada laga kacay. arrintaasi markaa bal munaasib ma ahayd baynu ka hadlaynaa insha Allah ta'ala. taasi waa qodobka labaad. shareecadeenu waxay u kala qaybsantaa ma ahkaamta culimadu ay sheegaan laba qaybood. wax usul iyo qawaatic ah oo diinta ku cad oon madmadow ku jirin, oon culimadu ku muransanayn, iyo wax muran ku jiro oo muhmal ku jiro dadka qaarkood ka dheehgeli kara ama culimadu
ay isku qabtaan sideedaba wixii culimadu ay isku qabanayaan aan cadayn culamadii ama naska fasirkiisa ay isku qabanayaan ama nasba aanu jirin halka la cuskisiinayo halka la haleeshiinayo ay isku qabanayaan in caamada lagu wareeriyo maaha inuu qofku buuq ka kiciyana maaha laakiin waxay tahay in ummadda lagu guubaabiyo inay ilaaliyaan waa wixii usuusha diinta culamada islaamkuna ay isku wada waafaqsan yihiin nusuusta shareecaduna ay meel ku cadaysay oo ay saartay taasay tahay in dadka had iyo jeer ay waxa weeye lagu guubaabiyo inaanay ogolaan inay cidi ku tacadido cidi ku xadgudubto laakiin wixii khilaaf ka jira culimadu qofba si u arki karo culimada islaamku aaraadooda iyo andaartoodu ku kala duwan tahay in inta waxa weeye ummadda la soo hor joogsado ama miidiyaha lagala hadlo buuq lagu furo maaha qofku si degan wuu sheegi karaa isaga siday la tahay laakiin wuxuu sheegayaa waxaas inay tahay isaga siday la tahay inay tahay laakiin inuu diintii ilaahay iyo waxyigii soo degay ka dhigo ra'yigiisa iyo sida qowlku isagu ku qanacsan yahay qalad aad iyo aad u xun weeye raad fool xunna ummadda u keenay taa markaynu haddaba iyadana soo fahanno waxaynu uga sii gudbaynaa arrintan iyada masaladan gaal la gubay xukunkeedu muxuu yahay gaalada inagu dhex nool ee ammaanka la siiyey waxa la ogol yahay iyagoo diintooda haysta inay nagu dhex noolaadaan waa arrin shareeco oo culamaduna aanay ku muransanayn kolba haddii ammaan la siiyey ammaankaa la siiyey lagu ballan burin maayo isagoo wixii sii aaminsan ayuu ina dhex joogaya dambiga ugu weyn uu aaminsan yahayna waa gaalnimada waxa waxa dambiye kala ahi way ka sokeeyaan taa gaalnimadiina inuu dhex joogayno ogol lahay laakiin meelaha muuqda iyo suuqyadeen iyo banaanada dadku ka buuxaan inuu la yimaado ayaynu u diidaynaa oo waxaynu leenahay ama kaniisadaha haday kaniisado hore ugu jiray dhulka maaragtay ay jiraan kaniisadaha ku ekow ama meelaha marka waxa weeye qarsoon ama gurigaaga ha noqoto ama meel kale oo xaafada idin gaar ah ha noqoto meelihiina ka soo gudbin oo muslimiinta la dhex imanina munkarka iyo la oranay macnaheedu taa ma aha iyadoo qof muslimiin ku arkayno baad wax samayn kartaa iyadoo muslim ku arkayo uu samayn karaya wixiisi laakiin inuu banaanka inoola soo baxo meelahaynu isugu nimaadniyo majaalisteen iyo suuqyadeena la yimaad baa loo diiday waxa la ogol yahay qofka muslimkii naag yahuudiyada inuu guursado naag kristaana inuu guursadana waa la ogol yahay waxa la ogol yahay naagta kristaanka ah ama yahuudiyada wixii diinteedu u xalaaleynaysa ama khansiir ha noqdo ama khamri ha noqdo inay guriga ku cuntay ku cabto guriga ninka muslimkii lahaa haddaanu isagu u diidin khansiirkeedii bay ku cunaysaa oo khamrigeedii bay ku cabaysaa waxay culimadu isku qabtaan xaq ma u leeyahay inuu u diido inuu yiraahdo khansiirka ma cuni kartid khamrigana ma cabi kartid inuu ku yiraahdo uu ku qasba xaq ma u leeyahay mise uma laha bay culimadu isku qabtaan imaam shaafici wuxuu leeyahay haddii uu ka yaqsoonayo uu diidi karaa macnaheedu waa maxay hadduu iska daayo khamrigeeda ha iska cabto kol haday xalaal u arkayso diinteedii aanay ka xarimaynin khansiirka ha iska cunto haddaanay diinteedii aanay ka xarimaynin loo diidi maayo oo yani wax dhibaato ah la oran maayo isagana la oran maayo munkar baad samaysay inaad u diiday ahayd iyadoo gaalada loo ogolaaday inuu sariir la seexdo oo ciisa rabbiga yale sawma marka waxa weeye yaan masaa'isha mas'alo la bomboonin tii ka weyneyd baa meesha taal taas hadda markay saa tahay gaaladii de waxa la ogol yahay wixii ka dhinta sidii iyagu ay markaa yeel jireen diintoodu ay u fasaxaysay inay yeelaan waatii qubuur ay gaaladu lahaan jireen muslimiintuna ay qubuur lahaan jireen qubuuraha gaalada yaa lagu aasi jiray gaalada de lagu aasi
يا آسي تيجا آسنا يو قاب كي يجو دين تودو أهيد يو آسنا ين هذا بقى بل قال كان إنه قد حدين طيب علماء وحي كي هذين يو نصوص تا ما رك تيجي حوي يعني الشيء أيين إشارة دارنا هرت وحي إنه شيء حديث أرانا يقال كوال لجوبي كرا لما هيو سدوا كلا حديث أما آيات أرانا يسلم جوبي كرا لما هيو ولا جوبي كرا قال كان لما هيو مركو دنتو وإنه كهذا للدنا حديث كان ما رك تيجي حوي طب كيله يوم بوحكوا عذاب وإنه كهذا للدنا لكن جيفة إيا بختك قالك ولا جوبي كرا حديث ما أرن آياتنا ما يأرن لما جوبي كرنا آياتنا ما يأرن حديثنا ما أرن عصاهري مركا فهم كي علماء عصاهري فهم كي علماء عصاهري سيدا درادين وحين سمعنا النصوص صورة الشيء مينه علماء أرنتن محي كي يراهدين أيينو كورمي قال كاسيدا لقى يلي علماء وحي كشجع بينو كورمي كدي بينو مركا إشارة دون أحاديث تدرك قاركود أي أدني شدير إن مركا حرمه يسوع إلا جوا أي منكر كردقة يسوع بل يدنا أحاديث تاسي قاب كنوع يدنا فهم كاسي فهم اللي يذكر رأسيه هاي بكتير مثلا وحوي فهم اللي يذكر رأسيه هاي كم تشرو يدنا وينو كهذا دونا لكن إن الناس كريم بهرتا إن أوجاتا أي مهم تاي مركا أنت على جاي مع دع علماء قال كي إنه قد حدين طي وكلا قاذين waxay u kala qaadayaan gaal murtada nin ridoobay deetana la dilayba oo xadkii ridada lagu oogay ama iska baqtiyay iyo mid xarbigu waa gaalka inala dagaalsanaa dagaal inaga dhaxeeyay deetana aynu dilay ama iska baqtiyay labadaasi waa dhinac waxa kale oo dhinac ah gaalkii aynu magangeliyo siinay ee nabad inagula joogay taasina waa qayb aynu u nimaadno gaalka murtadka ah ama ka markaas waxa weey xarbiga dagaalku inaga dhaxeeyo ka isaga ah ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala wax badankoodu waxa ay isla ogol yihiin sida ay iyagu naskaraynayaan haddii dadkii diintiisu ay jiraan inay iyagu say ka yeelayaan aimada xanafiyadu way naskareeyeen oo waxay yiraahdeen haddii aqaarib gaala iyo wax uu leeyahay waa loo dhiibayaa iyagu markaas sida ay ka yeelaan kuwooda dhintaha ka yeelaan marka qodobka iyada ah la kala qaadi maayo xarbigii iyo murtadkii iyo xataa dhimigii kii dhimiga ahaa ee magangelyada inagula joogo iyo kii murtadka ahaa iyo kii xarbiga ahaa ee dagaalku inaga dhaxeeyay saddexdaba dadkoodu haddii ay si ka yeelayaan inaga wax inagu waajibaho ka qabta ihi maadaama ay sidii iyagu diintoodu faraysay ay ka yeelayaan ka qabta culimada citri ma jirto oo u diida haddii ay aasanayaan hadday gubayaan hadday si kala odhanayaan laakiin culimadu inagoo amaanada cilmiga ilaalinayna ereyga gubitaan culimadu ogolaansho iyo diidma toona carabka kumay dhufan laakiin waxay yiraahdeen waa loo dhiibayaa imada xanafiyadu waxay kuwooda dhinta ka yeelaan ha ka yeelaan غير واحد من الحنفية كتبت حنفية بدن كذا قريس علماء كله waxay ka hadleen iyaga laftoodu in loo dhiibayo may sheegin laakiin waxay ka hadleen uun hadii gaaladii la waayo inagu sidaynu yeelayna marka maxaad halka ka fahmaysaa haddii gaaladiisii ay jirto da iyaga qaadanaya inagu waxba ku falimayno laakiin haddii gaaladiisii aanay jirin iyay waxay yiraahdeen inaga ma inagu waajibaysaa inaynu aasno mise inagu waajibayso markaas ay kala saareen saddexda xukunkooda kala saari doon laakiin haddii aanay ay gaaladoodii joogto waa lagu wareejinayaa marka sabqulisaan baa iga dhacay waxaynu ka reebaynaa marka murtadka
oo culimada xanafiyada ayaa iyagu waxay yiraahdeen murtadka kuwu diintooda ku biiray loo dhiibi maayo maxaa lagu sameeynaya waxay yiraahdeen waa la qaadayaayo god meelaha hog god maaragtay ayaa lagu tuuraya sida ayda dhimataba loo tuuray xoolaha dhinta godka loogu tuuro ayaa loogu tuurayaa bay yiraahdeen hadda aasid ma helo soco wala aasaya ma kolku neef bakhtiyo si aan dadka urtiisa iyo qarbuunkiisu u dhibin waa ta la qaadana meesha gudaafada lagu soo rido ama booraan iyo wax lagu rido saasay ka cabirayaan sida ayga dhinta ee bakhtiya god loogu rido ayuunbaa isagana loo qaadaya god la isaga tuuraya xufrad lagu ridaya waa si aan dadku markaa ugu dhibaatoon isaga markaa loo dhiibi maayo bay yiraahdeen dadkiisi laakiin kuwii kale waa loo dhiibayaa bay yiraahdeen ahalkiisa loo dhiibay culamadii kalena cid tiri waa loo diidayaa ma hayno xataa murtadka ay xanafiyadu yiraahdeen loo dhiibi maayo culamadii intoodii kale cid tiri murtadka laftiisa kuwaasi haday jiidanayaan waa loo diidayaa kumaynaan arag waxa soo haray kii aanay dadkiisu qaadanayn waxaynu u kala saaraynaa murtadkii iyo xarbigii iyo dimigu waa kan aynu magangeliyada siinay kii ridoobay iyo kii xarbiga ahaa ee dagaalku inaga dhaxeeyay haddii aanay jirin gaaladiisii qaadanaysa inagu maxaynu ku samaynaynaa culamada xanafiyadu waxay yiraahdeen hog baa lagu ridayaa sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu gaaladii quraysheed laga laayay badar uu godka ugu daadiyey aasidna maaha waliba xataa waxay leeyihiin aayar lama dhigayo godka waa lagu dhex tuuraya aayar lama dhigayo waa lagu tuuraya aimada shaaficiyadu laba qowl bay isugu qabtaan waxa inagu horta in la kafanaa waajib in la maydhaa waajib maaha in la kafanaana waajib maaha mar hadduu murtad yahay ama xarbi yahay laakiin ma la aasayaayo ma la qarinayaa inta god lagu rido ma la qarinayaa ayaa laba qowl ku jiraan qowl wuxuu leeyahay haayo waa la qarinaya qowl kalena wuxuu leeyahay waana sida ay rajaxaan culimada shaaficiyadu waxba lama qarinaye meelahaas ayda lagu siinaya ha cunte saasay ka cabirayaan aydu ha iska kala googoosatee aydaa loo tuuraya haddii god lagu tuurana dhib ma laha laakiin waxba wax u waajibayaa wax alla wax u waajibay ma jiro waa murtadkii iyo kii xarbiga ah dagaalku inaga dhaxeeyay oo kaalay kii magangeliyada afwan marka shaaficiyadi baynu sheegnay waxa inoo dhiman xanafiyadi iyo maaliki xanaabiladi iyo maalikiyadi afartii madhab culimada xanaabiladu way isqabteen qaarkood sidan shaaficiyadu sheegtay bay sheegeen oo ayda loo tuurayaa bay yiraahdeen xarbiga iyo murtadka qaarkoodna waa say iyagu rajaxdaane waxay yiraahdeen may waa la aasaya la mayri maayo in la kafanaana ma banaana bay yiraahdeen in la aasam in la mayra ma banaana in la kafanaana ma banaana laakiin god baa lagu ridaya lagu qarinaya lagu asturaya a'imadii maalikiyadu iyaguna waxay yiraahdeen maalig gaalka muu kala qaadina in la asturayo la qarinayo ayuu sheegay marka waxay u badan tahay culimadu waa daqiiqin weey hadalka iskama oranayaan waxay u badan tahay bayeen maalig hadalkiisu wuxuu u badan yahay in macaki xarbiga ahaa la qarinayo in la qariyaa ay waajib tahay qaarkoodna waxay sheegeen inaan waxba la qarinay ayada loo tuurayo marka shaaficiyadii waxay rajaxayaan ayadu ha iska cuntay waa la iskaga tagayaa xanaabilo iyo maalikiyana iyagana waa qowl ku jira in ayada loo dhigayo laakiin
waxa u rajaxan iyaga in waxa weeye god lagu ridayo la qarinayo wuxuu dhami istidlaalaad way jiraan waynu ishaari doonaa laakiin nas ma jiro naska jira waa ficil nabigu calayhi salaatu wasalaam markii gaaladii badar la laayay godka wuu ku guray qaabkii loogu gurayna waynu sheegi doonaa laakiin ku guridaasi de waajibnimo ma sheegayso waa ficil oo ficilku wujuub ma sheegayo saas daraadeed bay u leeyihiin markaa qolyaha ale ayada loo tuuraya ayadu ha iska cuntay waa la iska daynay waxaynu imanaynaa kii dimiga ahaa ee magangeliyay nagula joogay ee dadkii diintiisa ah oo qaadanaysa aanay jirin maxaynu ka yeelaynaa isaga culimadu waxay u badan yihiin in la aasayo oo in la qariya ay waajib tahay waliba shaaficiyadu waxay raacinayaan siday rajaxayaan in la kafanaana waa waajib bay leeyihiin ka lama meerayo in la meera waajibi mayso iska banaantay laakiin waajibi mayso waa la kafanayaa waana la aasaya xanafiyadu waxay kala qaadayaan cid qaraabo u ah muslimiin miyay jirtaa mise ma jirto haday cid qaraabadiisa oo muslimiin ay jirto waxay leeyihiin ha mayro oo ha kafano oo ha aaso iyadoonay waajib ku ahayn laakiin way u fiicantahay maadaama ay qaraabo yihiin qaraabo xiriirin ha ka ahaato iyaga laftooduna waxay leeyihiin markuu mayraya sidii muslimka u mayri maayo sunnayaashii iyo cadarkii waxba ku dadaali maaye sidii qof marar nijaasooday mayraya oo kale u mayraya bay yiraahdeen maruu kafanaya maruu ku duuduubaya bay yiraahdeen sidii muslimka waxba u kafani maayo godkana uu ku ridayaa uu ku tuurayaa bay yiraahdeen ee aayar ma dhigayo hadda waa kii dimiga ahaa la soco ee magangeliyada inagula joogo ee gaaladiisii aanay qaadanay qariib muslima lahaa cid qaraabadiisa oo muslina haddii cid qaraabadiisa oo muslini aanay joogin way ka aamuseenoo xaaladda ay yidhaahdeen way bannaan tahay in la mayro oo la kafano oo la maaragtay god lagu qariyaa waa xaaladda cid qaraabadiisa oo muslin ay joogto markaas yidhahdeen way bannaan tahay marka hadalkooda qaabka laga fahmayaa waxa weeye muslimiintii kale inaanay u bannaaneen inay mayraan oo kafanaan marka maxay sameynayaan sidii kii xarbiga ahaa ayay god iskaga tuurayaan iyagoon waxba ixtiraamin taas ayaa markaa qowlkoodii uu noqonayaa markii gaalkii aanu qaraabo lahayn saasna markaa waxaynu haddaba ku ogaanay madaahibtii culamada afarta madhab ay ka qabeen murtadkii iyo xarbigii iyo dimigii waxaad arkaysaa qaar la god ha lagu tuuro iyo inay u kala baxeen kuwa le aydaha loo tuuray ha iska cunto aydu saasay u kala baxeen mid aan la oran waxa weeyaan in la aasaa waajib ma aha oo qowl aan ku jirin ma jiro xataa ka dimiga ah waa kuwaasoo xanafiyadii haddii aanu qariib lahayn daahiru kalaamihim hadalkoodu siduu u muuqdo waa inaan waxba aasitaankiisu waajib ahayn oo god in lagu tuurayo si markaa dee aan loogu dhibaatoonin urtiisa iyo qarmuunkiisa shaaficiyaduna waa inaskareeyay inaan waxba u waajibaynin qowl agtooda ama wajhi ay qabaan oo sida kale rajaxan tahay haddaba maadaama ay sidaa tahay culamadii kamay hadal ma la gubi karaa mise lama gubi karo laakiin su-aashu waxay tahay wadaadka odhanaya waa xaaraan in la gubo dee waa inuu yidhahdo waa fahankaygii caalim yidhi in la gubaa waa xaaraan ma soo helayo caalim yidhi waa xalaalna ma soo helayo marka mar hadday sidaa tahay qofku waa inuu yidhahdo waa ra'yigaygii mid kalena wuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo ayga loo dhigayo dee waxaaba dhaanta in la baabi'iyo oo la gubo oo ayga waxa weeye ayadu cunto qayba meel lagu goosto oo kolba ay in goostaan waxa dhaanta in gebigiisaba inta dambas laga dhigo sidaa lagu baabi'iyo oo la tirtiro marka wadaadka yidhi waa xaaraan in la gubo waa xaaraan wadaadka yidhi dee maaha masale qaatica ama qowl qaaticu haya maaha ama yidhi in la gubaa waa munkar wax qaaticu haya ma jiro waa isaga ra'yigiisa xataa qowl culamo oo a'imadii diinta hore waa laga yaabaa wadaad mucaasira in la helo culamada waqtigan yani mid kamid oo yidhi warniyo bal arrintaasi malaa in la gubaa waxay ka soo horjeedaa walaqad karamnaa bani aadama waynu ka hadli doonaa aayadde iyo ka soo horjeedaa waa laga heli karaa kuwa yidhi masaladaas
ونيو كهوب سبي وباهنت كفير سبي وباهنت أين واجرة لكن أي ماذا يهره عد جبتان أما وي بنان تاي تري أما ما بنانة تري ما هين مركمر هذا يصير تاي عدي اجتهاده سقالة إن لجوب وقام معه الله قيليو أرين كله مركب قالوا ده اللورد ديبه قال ذي أي جبنيس وفكي ما يتكودي أي جبيان أما أي عاصيان إن جا قريانو أي لطلون تان مواجب بيكوتاي علماء الشافعية ده أيها وحي شيئين مرك إن لجو شرطين إن كواجب تاي نمان كام جنجلية ده إنه قلت شوجا ما يتكودا مركي عاصيان إن يسكر سوديا وعاستان إمام الرافعي إمام النووي باشيغي waxay ka soo naqliyeen ma wardina marka kitaabkiisa loo noqdo wuxuu yiri hadii markii magangeliyada la siinayay shardi lagaga dhigay inay markay meydkooda ay aasanayaan ay qariyaan waa inay qarsadaan oo shardiga ay fuliyaan hadii aan lagu shardin waxba iyada markaa waxa weeyi laba wajibu sheegay in markaa ay qarinayaan inaan qarinaynin waliba aan fadhiyo in tarjiixiisu ay sidoo rajaxay inaan waajib ku ahayn inay qariyaan haddaba haday gubayaan inay la dhuuntaan lafteedu ta culamadii in kamidun baaba tiri aaski way qarsanayaan maadaama laga yaabo inay dasiyaabo salaamkii ka duwan iyagu wax u aasayaan gubidiina ay tahay wax khilaafsan qaabkii inagu aynu meydkeena u aasi jirnay inay naga qarsadaan oo si gaar ah u qarsadaan waa arin wadaad soo jeediyay bay noqonaysaa culamadii qayb kamid ah ay soo jeedisay tiri laakiin wax nas sheegayna maaha inay munkar tahayna nas ma sheegin waxaan inuu munkar yahayna nas ma sheegin inay meydkooda markay aasayaan qarsadaanna wax la isla waafaqsan yahay maaha marka iyada lafteedu ra'yi bay noqonaysaa qowl qofka raajix way la noqon kartaa waliba sheekheynka sheego sheekheykana waa taaba lagu qabsaday la yiri ma wardi shardiga uu u sheegay ba ka tagteen oo shardigu wuxuu markii qofkan magangeliyada la siinayay hadii la yiri meydkaaga waad naga qarinaysaa sidaad ka yeelayso ayuun bay waajib ku tahay oo ku qasban yahay inuu naga qariyo hadii aan laakiin shardiga loo dhigin waxba sidoo ka yeelayo inuu naga qariyaa waajib ma aha soo baxaysa waana qodob muhiim haddaba horta masaladu halkaasay taagan tahay hadday noqoto aqwaashii culamada iyo hadday noqoto nas ku soo arooray ma jiro aqwaashii culamadana qola tiri gaal oo dhanba aydaa cunayso waxba inagama saara wax xilih inagama saara iyo waxay u baxeen kuwa yiri marka cid qaada la waayo ayaa xil inaga saaran yahay xilka inaga saaranna markaas ay isku qabteen oo qolana waxay tiri hana la kafano hana la aaso qaarna waxay yiraahdeen ma yaanay kafankii maba banaana waa xaraan in la kafana isagoo sidiisa sahuun hal lagu rido markaa waxa weey xabaash qaarkoodna booraan hal lagu riday bay yiraahdeen god oo hal lagu tuuro wali marka inaynu u baroorano gaal markaa culimadiiba ay sida isugu qabaano aynu umada bulshada fawda ugu kicino waxay ila tahay in waxyaalo inooga muhiimsan ay jiraan diinteena waxyaalaha qadciyaadkeeda aba maanta lagu soo duulayo duulaal lagu yahay wax laakiin mas'ala aan wax weyn ahayn inaynu markaa jiidno oo laga yaabo in dadka qaar kood wax laga sheego laga yaabo dawladda in waxa weeyaan lagu canaanto oo laga yaabo in markaa meelaha laga soo radiyo umada lagu kiciyo wax munaasiba ma aha aynu nimaadno xagga adilada dadka qaar kood ay ka fahmeen inaan la gubi karin aayad iyo waxaan maqlayay ila 3 xadiis ama 4 xadiis oo dadka masaajidada ka kacaya ama meelahaas ay markaa sheegayeen aayadu waa qowlka ilaahay uu leeyahay walaqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahr wa razaqnaahum min at-tayyibat bani aadamka waanu karaamaynay su'aashu waxay tahay waxay markaa iyagu bani aadamkii ilaahay karaameeyay in la gubaa karaamayntii ilaahay maaragtay waxa weeyaan uu sheegay bay ka soo horjeedaa horta aayadu innaga wax inaguma waajibinayso
fal aynu ka samaynayna bani aadamku aayadu inagu waajibinaysa ma sheegi ma jiro aayadu waxay ka warantay ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo ugu nimceeyay bani aadamka in'aamullahi 'ala al-insaan bi sheegaysa bani aadamka markaa ma la ihaanaynaya mise waa la ikraamaya nusuusta inagu waxaynu ka yeelayna ka hadashay baa laga qaadanay aayadan laga qaadan maayo gaalka in la aasa inay waajib tahay waayo hadii saa laga qaadan lahaa waxa laga qaadan lahaa wax kasta oo karaameyn iyo ikraam ah in gaalka loo sameeyo gaalka in la ikraamo miyay banaan tahay baba hadal ka imanay hadii la yiraahdo laqad karamna bani aadamka waanu karaameynay oo sida daraadeed waa in la aasa waa waajib macnaheedu waxa in la karaameeyaa waajiba yaa yiri in la karaameeyaa gaalka waa waajib ma banaan tahay baa hadalka taagan yahay kursigan adoo kacdo waa xaraan bay culimada qaar kood leeyay wadada hadii la iska wado xadiis ku yimid ku ciliiri halka ugu ciliirisan meesha ballaalkaana adigu mar isaguna meelaha ciliiriga ah mar wa taayada quraanka ila hatta yu'tu al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun iyagoo dulaysan jizyada ha bixiyaan dulli inay ku noolaadaan gaalada in dhex joogtaa ayaa nusuustu in faraysa xagee marka karaameeya ka timid waa qodobka labaad culimada cid aayadan u daliishatay inay waajib tahay bani aadamka in la aaso iska daa gaalada muslimka in la aasa inay waajib tahay aayadan u daliishatay anigu ma arag meel alla meel aayadan ka sheegayso aasitaanna deema yaalo gaalkiina ifki isagoo nool baa la duleeyay xagee ka timid marka waxa weeyaan hal karaameeyo hadii hal karaameeyo marka waxa iman hal meedhana in la meedhaa waajib baa gaalka cid ahlul cilmiga in la meedhaa waa waajib tiri ma garanayo way banaantahay ma banaana la isku hay in la kafano way banaantahay waa xaraan baa la isku hay maana iyada lafteedu karaameynta kamid ahay in la kafano qofkii waxa weeyaan la asturo waa culimada isku hay qaar waa kuma la godka lagu sii daayo doona araxda ka jabe waxa waliba arintaasi ayidaya godkii nabigu kaleey salaatu wasalaam gaaladii badar la laayay uu ku ridayay waxa sahih al-bukhari ku sugan oo saxiixa umayyah ibn khalaf ama ubay ibn khalaf labada mid ahaan ba riwaayad way raawiga shaki labada ku ahaa wuu buurnaa buu yiri markaanu jiidnay godka la doonayay in la doonto kolkaanu jiidnay buu kala haray buu yiri googo ay gabigiisiiba aaway karaameyntu marka walaqad karamna bani aadam xaqii mar waanu jiidnay oo googo ay buu yiri hada saxaabadu way badnaayeen may qaadi kari waayeen la soco laakiin tan iyo muraad baanay kala hayn qaadidiis kolkay jiidana uu googo kuwooda kalena way ku tuurayeen godka imaamka la yiraahdo ibn battal marka musnad aynu ka hadlayno inuu sheegi doono hadalkiis idan walaqad karamna bani aadama wax gaal hal la aaso oo meesha ku jirta ma jirta hadii wadaad uu ka fahmay ta isagu ha ka fahmo laakiin ay yiraahdo waa aniga ra'yigay laakiin aanu diintii ka dhigin waxa kale oo aad ay dhalinyartu uga hadlaysay xadiiskii la yu'adhibu bin-naar illa rabbun naar naarta ama dabka waxa wax ku cadaaba waa ilaahay waa xadiis saxiix dabka ilaahay baa wax ku cadaabi kara kiisuhaashu waxay tahay meyd la gubaya inuu la cadaabaya inaad waxay dhintay aad gubtaa waxa la cadaaba wax nool baa mise wax dhintay cadaab wax xanuujin weey ma wax dhintay baa la xanuujiyaa mise wax nool baa la xanuujiyaa inagu iska caajin baynu nahay oo af carabiga inuu baranaa marka waxa muhiima in culamadii aynu eegna sida xadiiskan u fasireen yarta cadaab maxaa la yiraahdaa iyo la yu'adhibu maxay sheegaysaa waa inaynu baa hadaa tiraada ka waran looxii dabka la geliyay wal cadaabi oo dadana tiraada la yu'adhibu bin-naar illa rabbun naar hilibkii aad solanaysay ka waran miya la keenay la yu'adhibu bin-naar illa rabbun naar marka hilibkii sosho soo dabkii maad gelinin isaga laftiisu markii hore xayawaan buu ahaa laakiin damaanta cadaab ma marka xadiiskani wuxuu ku soo aroorayna waxay ahayd dad nool oo la gubay taa lama ogola gaal iyo muslimba in la gubo hadii aan dagaal lagu jirin oo aan madfac lagu ridaynin loo baahday gaalkii aad qabatay in kastoo iyada lafteeda khilaaf ku jiro culimada qaar kood ay ogol yihiin taa lafteeda qaar kood ogolaadeen laakiin sida loo badan yahay xadiiska daahirkiisuna uu sheegayo sabab wuruudkiisana ahaa wax nool in la gubo lama ogola
لكن هل كو حديث كان كشاغي واحد انتي ونف باني كجري نفته كبخدي هدي دبله غليو ولا لا يعذب بالنار الا رب النار بو سو غليا دي waxay u baahan tahay bal horta hal qaabku u soo galay marka hilibkii la sooranaye dii la doono ololkiiba la dhex gelinay waxa tiraahdaa isagana waa la cadaabaya la yu'adhibu bin-nar illa rabb an-nar عذاب القبر baa jiro qofka qabriga waa lagu cadaaba gaalada laakiin de naftiiba calaaqala loo nolol xayaatul barzakh la yiraahdo nooli nolol xayaatul barzakh la yiraahdo nooli no sidaas ayay markaa u cadaabmayaan aakhirana waa saas oo kale waxaan dadku waa nooli la yamuutu fiha wala yahya marka xadiidkaasi la min qariib wala min baciid baqti gaal ma sheegayo xataa aydan nagu ag baqti ay saynayno intaynu gudaafada ku darno dabka qabadsiino oo inu gubna xadiiskani day nooma diiday hadduu qof yiraahdo waa xaraan waxa laga doonayaa bal hada halku soo maray iyo cidii ugu horeysay culimadii iyo hadii isagu leeyahay iska ijtihaado aniga ila noqotay waa inuu dadka yiraahdo aniga ila noqoto xaqiiqada u sheego laakiin diin ilaahay soo dejiya yaanu ka dhigin ra'yigiisa waxa kale aad isagana loo hadalay xadiiskii annahyi aan al-muthla nabigu inuu diiday googoynta annahyi aan al-muthla googoynta nabigu alayhi salatu wasalaam uu diiday su'aashu waxay tahay haddii la yiri lama googoyn waxa weeyaan cid ha googoynina macnaheedu ma waxa ha gubinana miyay soo galaysaa ninkii dhintay in la gubaa googoyntii la xarimay ma la mid baa baynu rahnaba waa xaraan dhowr su'aalood baa ka horeeya su'aasha koobaad horta musladu sideedaba googoyntu haddii waxa la googoynayaa gaal yahay ma xaraan baa mise waa makruuh ayaa hadalka taagay nahyigani ma nahyu tanziih ba mise waa nahyu tahriim ha googoynina la leeyahay ma waxa weeyi ma xaraamayn ba mise waanay fiicnayn baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam wallah isku khilaaf culimada qaar waxay yiraahdeen waxa weeyi waa karaahu wala nacaya in la googooyo laakiin gaalkii inaad googoyso hadaad u baahatay inaad googoyso xataa isagiyo nool waa googoyn kartaa bay culimada qaar kood leeyihiin tusaarkii isagiyo nool haddii uu dadkii muslimiinta googooyay adna waad googoyn kartaa su'aasha labaad marka aynu rajaxano annahu yaqtadi at-tahriim aynu raahno waa xaraan waana sida loo badan yahay waxay su'aashu tahay ciidan yaan la googoyn la leeyahay ma cid dhimatayba mise waa cid nool qoladii lahayd nahyigu waa xaraamayn oo tahriim buu faa'iideynaya iyo waxay haddana isku sii qabanayaan ciidan laga hadlayaa ma ciidan nool ee dilaysaan ha googoynine si fiican u dilaba mise waa meydkii gaalka ahaa markuu dhintay kadib ha googoynina deeyadan hadal baa ka jooga culimada qaar kood waxay leeyahay waana sida daahirka kalaamka Shaafici ibn al-Athirna uga soo naqlinaya waxa weeyaan uu ku xambaaraya hadalkiisu inuu yahay qofkii noolaa marka dilaysaan ee dilmada mutaystay ha googoynina اساني ودلا اذن الحديث في الاحياء على هذا القول وحكاد لا يابا وا دد نول كاد لبا مايو دد دنتي marka gaal la gubay waqti gaalo la gubay de sidaas aan halka xujaba ugu noqonaynin hadii qowlka la yiraahdo su'aal saddexaad qowlkaas markaynu joogno intayna su'aasha saddexaad u gudbin qowlka dadka qaba waxa kamida imaamkii ibn Battal ya kamida waxaanu daliishaday gaalka ay jiideen kala go'ay iyo waliba godkii ku tuurayeen wuxuu yiri markii la tuuro gaaladii marka godka lagu daadiyo day way jajabayaan marka in muslada la diidaya ay tahay dadkii noolaa in la googooyo ayaa xadiidkii sheegaya buulay taasuu daliishanaya isaguna وانا ظاهر كلامك الشافعي سينو الشافعي وانا السبب تحديث كي مسلده النبي وديدي maxaa uu sabab ahayd markii nabigu kaleey salaatu wasalaam qoladii geelchirihiisii dilay geelina ka haystay ee iyagu geelchiraha googooyay la soo qabtay waati inta iyagana waxa weeyaan indhaha laga soo daadiyay oo waxa weeyaan la googooyay la dhigay marka bacaadka iyagoo nool
أي سيدا كوب اختيه بيان الصيا لها أنا عندنا أبحينين مركا كدبوا النبي يقول مسلة الديدي سيدا حديث كوعة يجو أنت مركا السبب تحديث كلفت أنه حب الشيء جيسا قفكي النوراية اللي دليل إن لجو إنه النبي عليه الصلاة والسلام والنهيين سؤال صدق هذا ماشان يدونا تلا وحوي جوبيتانك حتى أينو إسكابن نراهنو مثلث والتحريم وحرامين أينو نراهنو وعام يلي سامد نول يمد ننتبه إلا جوجويا هذا نوع حرام أينو نراهنو إنسان الله بعضنا إسكسلمنو سؤال صدق هذا إيمان يسوع جوبيدو ما جوجوين به هي إذا لفت دونا إيمان يس إلا ذي سك جوجوين تلودي إذا جوبيد مية كوسو كنتا مركل لجوبا يشيء مركل لجوبا يمحل لجوبا تسير الله بابي إيوه إما كتاب قرآني هذي ويرجع جو إنه ضيع ما أذكر بقى ما حد سمعني صار وتقولي كرتاسو ما لكن ما تقولي حاشد وجوجي هاي أوراني نمر كات ده واحد يعني يقوم قصب كرتيدنا ترى هذي جوبي دوي كسي حال دار تاي جوجي أنتي وكسي درنتا تداوح نقول لك قرآن كيادو عبسطين وضيع مين تجوبتانين حرام نقطعك صوبي صحنا ما إن تجوجي سكاي اللي مينو inaad gubtasa dawaad baabiinaysa inaad tirtirtaa intuu dayacmi lahaa waa okay gaal kan marka ay culimadu lahayn hal inaga takhaluso intayna qarbuunkiisa iyo urtiisa ku dhibaatoon lahayn ama waxa weeyaan meelaha dugaag waxa ku cunana loo tuuro ama god baa lagu rido hadii la baabiinayo xashiishka inta la raaciyo isagana la gubo day wax diidaya marka waxa weeyaan xadiiska muslada iyaduna ugu ma jirto way jiraan culimada xanaabilada wadaad bahuuti la yiraahdo al-Bahuti saaxib sharh muntaha al-iraadat markuu gaalada iswada raacinayo leeyahay dimiga iyo xarbiga iyo murtadka intaba waa in la aaso wuxuu daliishanayaa nahyigii muslada ama googoynta la isu diiday laakiin yabqa baad ahli ilm xadiiska afraad ama daliilka afraad ee la sheegay kasru azmi almayyit ka kasrihi hayyan qofka dhintay laftiisoo la jabiyaa waxay la mid tahay isagoo nool oo laftiisa la jabiyay oo kale xadiiskana isagana waa la daliishaday inagu markaanu adiladan ka hadlayno uma hadlayno malihin waad qaldan tahay laakiin waxaynu sheegaynaa in waxaagu uu maleeyahay iyo sidaa ila rajaxan iyo ra'yigaagi ay tahay waa daliishan kartaa laakiin waa inaad ka dhigtid maaha xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ra'yigaaga sheegay waa inaad tiraahdo waa fahankaygi ولذلك waxaynu had iyo jeer sheegnaayo aragtaan markaynu su'aalaha ka jawaabayno culimada hadalkoodii maxaynu u sheegaynaa inaan anigu xadiiskii nabiga iskala cararo oonan culimadii u noqon oon xadiis nabi ka dhiga ra'yiga xadiiska nabigu faham buu u baahan yahay aayadda quraankiiba faham bay u baahan tahay marka qofkan wax sheegaya muxuu ku larayaa aayadda iyo xadiiska fahankiisa iyo ra'yigiisa buu ku larayaa وإنه سيدا دتك مركا دتكون أي فهمان يسوي سيدا دتك وفانسيو ولذلك وحال الإمام أيمدي علماء الإسلام كمية أي قف طبري أتمد مالك يدها مركاسي مسألة ويديس مركاسو كيوري مسيدي النبي يقول شاقي بعد دون يسا مسيدي إمام مالك شاقي مركاسي كتري وارسيدي إمام مالك شاقي إيش شاق إساقا كايا قان سيدي النبي يقول شاقي إمام مالك سيدو شاقي إيشك إسقى كاغا حوق وقالسن وحي النبي قشاقي إلا واحد درين سنتاي مركو لي هي سيدي النبي قشاقي ده سيدي النبي قشاقي واسدو يسوي كفها بهذا الكنبي مركا كسر عظم الميت ككسره حيا إذا لفت هذا علماء قيم بدنا كمدي وحي كفها من عدة لقاها يعني مسلم كبطاي ما يتكلم لقاها يعني مسلم كيايد يعني قال كباهي ورت سؤال انت اوجد بين حديث كسر عظم الميت ككسر حي ورت الحديث هذا ما كسوان علماء قاركود وابا موقوف بين بخاري برجحيه انه موقوف يعني او مرفوع باهين هذو موقوف نقدنا دم مساله فقهي وشيغايه عائشه رضي الله تعالى عنها ان اجتهاد كذا هيد با لغا يابا تاسوا قضب اينو نراهنا و اصحي حديث كلام قابه ولو وريا كسر عظم الميت ككسر حي ولو وري وحكلوا لو وري كسر عظم المؤمن ككسر حيا وحكلوا لو وري كسر عظم المسلم ككسر حيا ده تنا
علماء قيبة كمدي مسلم كون بابا لقى هذا قال بلقى هذه ما يرادي كسر عظم الميت ميت كل شيء الرواية كان عطيسيو ومسلم كي أما بقى قال كي حديث كري كما بهاد ليو dadka sida yiri waxa kamid ah Khattabi muslimka iyo xadiidku sheegay bikhilaaf al-kafir qaalka taa khilaafsan buu waxaana loo daliishan karayaa kuwa markaa godadka lagu tuuray culamadan markaa lagu tuura lihina inaanay jabidiisa dan kala ahayn waad arkaysa markaa waxa weeyaan xadiidkaasina isaguna taasa ku imanaysa waxa kale ku imanaya gubitaankii iyo googoynta farqigii u dhaxeeyayna halkan iyadana wuu imanay xadiiska kale ee la sheegay xadiiskii Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nabigu inuu ku yiri markii Abu Talib uu dhintay idhab fawarihi tag oo aas xadiiska iyo wadada qaar kood yiraahdeen waxa laga fahmayaa ama uu tusinayaa inay waajib tahay in la aaso dhowr su'aalood baa isagana ku jira su'aasha koobaad horta xadiisku ma asaxay الله يسكم موافق سنة مركها قفكي كوي هذا حديث كمو ضعيف يا وضعيف أنا بيهقي بابا كل راح سنة إنه حديث كان ضعيف ياهي وأنا أصحين بيهقي باب ضعيفي ده مركها حجتي بوي نعض هو الصحيح أن رانا سلع علماء قاركود أي هذين وقضية عين لا عموم لها وقضية قف كاركو صاب سنة أبو طالب إن لا أصوب النبي قد فري عليه قال كي إذن كل حب اختيار آسم مؤرم قضية عين بارا يا شخص قارة وحكو يمد عام لغا مردقو وليبا أبو طالب تلماما قارة أيولا هايو دا إسلامكو انتا ونصريني مركا إن لغو أبال مريي بابا دعي كرتا وكي النبي يقول هاوان إلهي بان دنبداف كو ويدين انتان لغا كان نهين تناينا أي كلام متاهينا وابا دعي كرتا هذا يناسي داكو حنبارين وحا ماشا إيمان إيسا فواريه soo aastani mawaajibba yaa yiri wujuubay faa'iideynaysa xaaladda noocan oo kala ah culimada islaamka cidtini waa waajibba muslimka waajibay ku tahay lama hayo Abu Talib waxa garab joogay inamadiisii Talib baa noola Aqil baa noola oo gaala aha markaas waxa joogay Abbas iyo walaalihii baa joogay qaar kamid reer Bani Hashim oo dhan buu la joogay oo qaar badan gaala ahaayeen haddii gaalkii gaaladiisii ay la joogto مسلمku inuu aasa inaanay waajib ku ahayn culimadu waaba isla wada waafaqsan sida daraadad amarkan uu nabigu cali amrayo waari soo aas leeyahay dalil wujub ma noqon karaba cali kuma waajibi kartaba waxay noqonaysaa uu iska arin marka jawaaz baabay ka faa'iiday culimada qaar kood ka daliishadaan hatta istihbaab kama daliishadaan marka waliba qadiyada ghasliga laga hadlayo oo riwaayadka xadiidka qaar kood ku jirta idan adiladii marka la sheegayay way iska wada jabantahay wada arkaysa haddii qof ay la rajaxnaato uu qaadan karaayo ma diidanin laakiin waxaynu doonaynaa inaynu cadayno masaladu inaanay mas'ala ahayn halka la gaarsiiyay muslimiinta inay diintii difaacaan ay war ka kacay iyo miyaan culimo jirin miyaan sidani jirin war waa idin sidee la leeyahay sax ma cagta loo dhigo qofkii ku qancay inaan maaragtay wax weeyaan la gubi karin inaan masalada inaan la gubi karin bay ila tahay yiraahdo ama wadaadkaas aan anigu ku qanacsanahay sidoo sheegay bas laakiin fawdiyaan la ridin inahaas ayaynu markaa ku soo ururinayna waxa markaa hal qodob baa isaguna jiro oo culimada Shaafiiciyadu markay leeyihiin xaaladda ay lahayn in la aasaa waajiba iyagu ahadi waxaan la daliishanay mid qura kama daliishan intanoo daliilo wadaadadan mucaasiriinta ay sheegeen ama wadaadadeena halkan jooga ay sheegeen xabada muslada oo kaliya ayaan arkay culimada wax ka daliishanaya in marka gaalkii la aasay inay waajib ka tahay taana way naga sheegnay waxyaalaha ku soo aroori laakiin Shaafiiciyadu waxay daliishadeen waxay yiraahdeen gaalkan aynu magangaliyada siinay heshiis iyo ballan buu inagula jiraa marka ballantii oofintaynu oofinayna waxa kamida in la aaso halkaana waxaaba ka soo baxaysa يعني هو حق يسوي نقول يا هاي أونه حق إلهي ما حقوق ذو واحد يكلا بعدها حقوق بني آدم هي حقوق إلهي حقوق البني آدم كقف كور ردي كرام مركا قال كي إنه يمدحتو يسقي بلا يا هلا يجوبه وكرر لي هاي اللي يجوبه ده حق يسقى وحتى حطوا حق نقول يا الله يسقى بك تناسلي يسقى بدونه يا إلا يجوبه وأما سي صحيح أما سي من سنة وعقيدة دي سبعة يا هاي مركا إنه إلى شنو إنه ينحذ نيبوق كدالينو قال يسقي دونه إلا يجوبه هدي اللي يجوبي ما أها أريد مركا مناسبة أو إن لا جدبون
inahaas ayaynu masalada xukunkeeda ku soo ururin lahayn iyo culimadu islaamku mawaaqifta ay gaalka sida la yeelay ka istaageen iyo gubitaanku halka uu dhow yahay iyo waxa weeyaan dhinaca waxa weeyaan la xigsiin karayo waxaynu markaa doonaynaa in masalada iyo masaa'isha kale ee lamidka ahba in markaa biruuxin haadi'a naftagan oo qabow in markaa lagu baaro baaritaan cilmiya haddii cid gaara ay ka dhacday sida falkan maanta dhacay oo kale ciddii gaarka ahayd in si aayaroo qabow loogala hadlo laakiin aan bulsho weyn aanay arrintani khusaynba wax alla wax ka galayna aanay jirin wacyigelinna aan uga baahnayn waayo wax iyagu da ay mumaarasaynayaan ama ay qabanayaan oo ay ka shaqaynayaanna aan ahayn marka wacyigelinteedana uma baahna marka inay dadka culimada ka dhaxayso iyaguna ay isla eegaan ayay ku qorxoon tahay inahaasaynu hadalka ku soo ururin lahayn وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين